dastuurkan kumeel gaarka waxaa ku qoran in awoodaha ama waajibaadka madaxweynaha ay ka mid yihiin furitaanka kala fadhiyada golaha shacabka kuma qorna in uu furo kala fadhiyada golaha aqalka sare sidaan ognahana kala fadhigina labaad madaxweynaha wuu furay maadinka ku qasbay in madaxweynuhu inuu sameeyo qodob aan dastuuri ahayn mise isagaa sidaa doortay waxaan ku leeyahay hadda qodob aan dastuuri ahayni ma jiro qodobo fara badan ayaa dastuurkan khaldan oo u baahan in la saxo waxa weeye dalkani wuxuu leeyahay laba aqal waa runtaa oo waxaa ku qoran golaha shacabka ayuu furayaa madaxweynuhu qodob odhanaya madaxweynuhu wuxuu furayaa aqalka sare kuma qorna laakiin waa labada aqal labadaba waa waajibaad uu leeyahay inuu furo cidina kuma qasbin isna iskama doonan ee waa sharci ya leesh baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu ka kooban yahay labada aqal golaha shacabka ama aqalka hoose iyo aqalka sare sidaa la ajligeed labadaba furitaankoodu waajib bay ku yihiin madaxweynaha inuu furo laakiin dastuurka kuma qorna hadda laakiin waa khaladaadka ku jira dastuurka wax badan baa khaldan waa la sixi doonaa maxaad uga baahnaydeen inuu furo marka haddii aanu qodob dastuuri ahayn oo aad usi weysan inta dastuurka la qabya tiray may waa qodob dastuuri oon qornayn waa qodob dastuuri ah oon hadda qornayn wey ya kolka waa waajibaadka lees madaxweynaha inuu furo baarlamaanka baarlamaankuna waa labada aqal ee mid keligii baarlamaan ma aha marka ma qabtaa inay ku habbooneed in mar qura la furo oo madaxweynuhu marba uusan gola tegin waa macquul arrin ah weeye macquul arrin ah weeye waxaase weeye in labada aqal inta lagu heshiiyo iyada nafteedu qodob ku qoran ma aha kuma qorna kolka waa qodob mustaqbalka iman kara oo labada aqal isku maalin in la furo isku maalinna la xira ay noqon kartaa laakiin dhinaca kale kolkaad ka fiiriso labada aqal dee waxay leeyihiin shaqooyin kala gaaray leeyihiin waxaa dhici karta aqal aan waktigiisii gaarin ya in kii kala gaarto kolkaas sidaa la ajligeed iskuma lagu xirnaan karaa goor kasta iskuma xirnaan karaa waadna si weysan inta qodobkaasi dastuurka lagu soo qoray haddii in la furo soo ma aha aqalkii uu shaqeeyo baarlamaanka horaad ka mid ahayd waad ogtahoo aragtida dad badan ay ka qabaan baarlamaankeena waxa ay yihiin inay yihiin xubno markay muddo joogaanba hadba mooshinkeena xukuumad rida isqabqabsi iyo muran iyo dana gaar oo ay eegaan mararka qaar in waktigii dalka wax lagu qaban lahaa ku dhammaado hadda golihii aqalka sare kusoo ziyaaday oo dhisan inkastoo warar sidaasa oo mooshinno la xiriira ay dadka qaar isla dhex marayaan haddana aan weli baarlamaanku si rasmi ah usoo bandhigin maxaa idinkaga aadan golihiina mooshinada inta badan ay xubnaha golaha shacabka keenaan xukuumadaha iyo dowladda markaa golaha fulinta lagu qalqalgeliyo horta idinkuma raacsaniye horta mooshin mar kastaba ma aha wax xun ma aha moshinku waa soo jeedin hore baarlamaan kastoo adduunkana waxa weeye hawlihiisa waxaa ka mid a mooshin laakiin waxa weeye moshinku waa inuu noqdaa mooshin ka hadlaya arrin qaran ma aha yani mooshinuun qof iskaga riyado uu wax ku keeno kolkaa horta waxa weeye baarlamaan golaha shacabka yani shaqadiisa mooshinadaasi way ku jirayaan waxa weeye waa waajibaadkiisay ka mid yihiin laakiin waa inay soo jeedintu ama mooshinka uu noqdaa mid dan qaran ku wajahan okay annaga haddaad kolkaa ad tidhi aqalkan waa maxay aqalkani horta waxa weeye haddii ay dhacdo inuu mooshin soo jeediyo soo jeediyo golaha shacabka waxa weeye inta ilaa ay ka imanayso maxkamadda dastuuriga laga dhisayo waxa weeye annagu mooshinkaas kolkaa waanu darsaynaa
moshinku sax ma yahay oo ma ku fadhiyaa yani sharci ma ku fadhiyaa mise kuma fadhiyaan fiirinayna hadduuna sharci ahayn waxa weeye mooshinkaa waa joojinaynaa hadduu sharci yahayna wuu soconaya waxa weeye waa hadda waxaa kamid a impeachment oo kale la keeno yani waxa weeye maxkamadda dastuurka ayaa daraasad ku samaysa laakiin ilaa ay ka imanayso aqalkanaa ku samaynaya marka booskaasaa matalaysaan miya ha aqalka ha booskaa waa matalaynaa ya kolkaa waxa weeye mooshinada waxa weeye la keenaa waa inay noqdaan kuwa qaranka waxtar u ah kuwaan qaranka waxtar u ahaynta waxa weeye waa lamaba keenayo marka golaha shacabka waxaad leedahay maba ka doodi karaan idinkoon darsin oo aan soo qiimeyn inuu sax maya maya way dars iyagaa keenaya way darseen way soo jeedinaya ogday way soo gudbiyeen de markaa waxa weeye annaga waxaanu fiirinaynaa ma ku fadhiyaa sharci ya ma ku fadhiyaa markaad leedahay ma ku fadhiyaa sharci maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa dastuurka arrin dastuurka waafaqsan oo ku fadhiya arrin qodob dastuuriya ma tahay wey sida wey arrinta taagan isla mooshinadaasi waxay tahay in la leeyahay xildhibaanada qaar a wadaan arrimo noocaas oo ay xukuumaddan ku aadan ma qabtaa xilligan in xukuumaddan aanay qabanin waajibaadkii loo igmaday oo ay u baahan tahay in wax laga bedelo waxaan anagu qabaa horta waxa weeye soomaalida inaga deg deg bayna dilaya waxa weeye xukuumaddani wakti la yidhaahdo wax ma qabatay iyo waxba may qaban horta ma joogno waxbay qabatay iyo waxba ma qaban wakti lagu dooda ma taagnin bal aynu u ogolaano yani at least hal sano ha jirto then markaasi waxay inoo caddaan doonta xukuumaddii inay wax qabatay iyo inayna waxba qaban markaasay waxaa filayaa mudan tahay in lala xisaabtamo marka sanad ka horba in arrinteeda lasoo hadal qaado adugu ma qabti maya anuga de waxaan leeyahay waa deg deg hadda waa 4 bilood bayba jirtaa ya haddaa 6 biloodna may gaadhin adlis ballica gaarto sida guud siday wax u socdaan iyo xukuumaddan iyo prime ministerka wallahi anu waxaan arkaa in dadaal uu hayo prime minister ya dhaqdhaqaaqiis waa badan yahay waa fiican yahay ma yani hadda wuxuu tegey kismaayo tegey ya dadka soomaaliyeed wuu kala xirxiran yahay warna isuma hayo kolkaa tegistaasi anu waxaan qabaa inay waxtar noqonayso oo si dhaba laysu wareysanayo loo wada hadlaayo ya intii hore saciidiba iskama warayso